الرحمن الرحيم ومالينما 4 سيدة بيش أبريل 2026 oo ku beegan 20ka bisha Shawaal sanada 1447 Hijriya ku soo dhawaada barnaamijka wararka maanta qodobada aan idinkuga haynana waxa kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran oo si cad u sheegay in ay farta ay ku hayaan riishada isla markaasina ay si kulul uga jawaabi doonaan xadgudub kasta oo lagu sameeyo xabad joojinta golaha amniga qaranka Iran oo dhankooda ku dhawaaqay in ay ku guuleysteen dagaalkii isla markaasina Mareykanka iyo Israa'iil ay ku guul dareysteen hadafkii ay lahaayeen Trump iyo ku-xigeenkiisa oo jeediya hadallo kulul oo ku wajahan Iran Israa'iil oo mid ka mid ah duqeymihii ugu xoogganaa maanta ka wada Beirut iyo magaalooyinka kale ee dalka Lebanon waxaa la soo warinayaa boqolaal dhimasho iyo dhaawac ah inkastoo rasaas joojin lagu dhawaaqay militariga Israa'iilna waxa uu shaaciyay inay dileen hogaamiye ka tirsan ururka Hamas laamaha ammaanka ee dalka Turkiga oo iyaguna sheegay in xabsiga la dhigay ugu yaraan 10 qof oo lagu xiriirinayo weeraradii shalay ka dhacay agagaarka dhismaha qunsuliyadda Israa'iil ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu nahwada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta haddii aad degan tahay dalka UK oo aad doonayso inaad lacag dirto waxaan ku hayaa fursad dahabi ah si fudud ula soo deg abka Somrimit adigoo isticmaalaya taleefankaaga tabletkaaga ama kombiyuutarkaaga Somrimit oo ah xawaalada ugu raqiisan ee lacag dirista waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada hadda kala soo deg abka Somrimit Google Play ama App Store-ka Somrimit amaano iyo adeeg hufan ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku uu u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay waxbarayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo la adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama aadan horay ugu xirnayn ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijyadeena Mawlid Xaaji Cabdi oo barnaamijkii la tabinaya ayaa noogu bilaabaya wararkii ugu dambeeyay Mawlid Mahadsanid Maxamed inkastoo lagu dhawaaqay xabad joojin habeennimadii xalay haddana waxaa lagu soo waramayaa in weli cabsi ay jirto wadnaha farta lagu hayo isla markaasna waxaa socda duqeymo kala duwan Israa'iil waxay duqeymo culus ka wadaa waddanka Lebanon oo arday faahfaahin doona sidoo kale Iran ayaa iyaduna waxa ay duqeysay Kuwait iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta Iran qudeeda waxa laga soo warinayaa in la duqeeyay xarumaha shidaalka iyadoo weli ilaa hadda aan la ogeyn cidda ka dambaysa duqeyntaasi walow wararka qaarkood ay sheegayaan in Imaaraadka dhankiisa ay ka yimaadeen weeraradaasi laakiin arrimahaas marka laga gudbo ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa war ku dhawaaqay aynu eegno war amurtan la xiriira oo warbaahinta Iran ay faafisay gordhaweyto ciidamadan oo magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa si cad u sheegay inaysan ku kalsoonayn ballanqaadyada Mareykanka iyo Israa'iil iyagoo intaasi ku daray in si heer sare ah ay uga jawaabi doonaan weerar kasta ciidamada IRGC waxay sidoo kale sheegeen inay diyaar u yihiin jawaab degdeg ah oo ay bixiyaan haddii heshiiska rasaas joojinta la jabiyo bayaan ka soo baxay ciidamada oo laga sii daayay telefishinka dawladda ayaa waxa lagu yiri farahan waxay saaran yihiin riishada waxaan diyaar u nahay inaan jawaabno haddii cadowga mar kale khalad uu ku sameeyo xisaabtiisa isla wararka Iran ee golaha sare ee amniga qaranka ee dalkaasi Iran ayaa ku dhawaaqay in Iran ay taageero iyadoo ka helaysa xoogga iska caabinta ee Lebanon, Iraq, Yemen iyo dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ay gaartay guul weyn kadib 40 maalmood oo dagaal ah oo ay la gashay Mareykanka iyo Israa'iil golahu waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil ay ku guul dareysteen inay gaaraan ujeedooyinkoodii militari ama ay qabsadaan Iran
isagoo intaasi ku daray in khasaaraha la gaarsiiyey uu ahaan doono mid taariikhi ah oo aan ka tirtirmi doonin oo la xasuusnaan doono muddo dheer. war ka soo baxay golaha oo lagu baahiyey warbaahinta ayaa waxaa lagu yidhi cadowgu wuxuu la kulmay guuldarro taariikhi ah oo burburina kadib dagaal sharci darra sida lagu sheegay bayaanka. Maraykanka iyo Israa'iil waxay u maleynayeen baa la yidhi inay si degdeg ah u curiyaamin karaan awoodda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Iiraan, isla markaasna ay ku qasbi karaan Iiraan inay isdhiibto. Golaha amniga qaranka Iiraan wuxuu kaloo sheegay in Iiraan ay bixisay jawaab adag taasi oo fashilisay qorshayaashii cadowga, isla markaasna dagaalku u ahaa mid ka mid ah kuwii ugu adkaa. waxaana la tilmaamay in awoodaha military ee Maraykanka ee gobolka waxyeello ay gaartay, isla markaasna weerar kale lagu qaaday dhulalka la haysto oo loola jeedo Israa'iil. war kale oo arrimahan la xiriirana ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa waxa uu ku sheegay fariin uu ku qoray baraha bulshada in uu maantay oo la yeeshay wada hadal diiran oo qoto dheer madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian. waxa uu sheegay in uu muujiyay qadarin weyn oo ku aadan go'aanka hoggaanka Iiraan ee aqbalitaanka dalabka Pakistan ee ah inay martigeliso wada hadallo nabadeed oo ka dhaca Islamabad toddobaadkan. Sharif ayaa intaasi waxa uu ku daray in madaxweyne Pezeshkian uu xaqiijiyay ka qaybgalka Iiraan ee wada hadallada soo socda, isla markaasina uu uga mahad celiyay dadaalada Pakistan, isagoo sidoo kalena u diray shacabka Pakistan salaan iyo hambalyo. dhanka Maraykanka, madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ayaa sheegay inaysan jiri doonin wax kobcin uraniumka oo Iiraan ay samayn doonto, isagoo ku andacooday in Iiraan iyo Maraykanku ay ka shaqayn doonaan sidii loo soo saari lahaa loona nadiifin lahaa xarumaha nuclearka ee la beegsaday, iyadoo markaana la soo saarayo uraniumkii la burburiyey ee ku hoos jira goobahaasi. sida hadalka uu yiri, Trump ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey in aan laga cafin doonin canshuuraha dheeraadka ee Maraykanku uu ku soo rogay dalalka caalamka ama cid kasta oo hub siisa ama ka iibisa Iiraan. isla Maraykankana madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance oo booqasho ku jooga dalka Hungary ayaa waxa uu ku tilmaamay xabad joojinta mid nugul, waxaana uu u diray Tehran digniin cad ka hor wada hadallada la filayo in ay ka bilaabmaan Islamabad toddobaadkan. waxa uu yiri, haddii Iiraaniyiintu si daacad ah ula shaqeeyaan Maraykanka, waxaan u malaynaynaa in aynu heshiis gaari karno. haddii ay been sheegaan ama ayna qiyaamayaan kuma farxi doonaan. waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu amray dhammaan kooxaha wada xaajoodka in ay si daacad ah uga wada xaajoodaan, balse uu ka digay in Maraykanku uu leeyahay awood ciidan, diblomaasiyadeed iyo dhaqaale oo weyn haddii sidaasi Iiraan ay uga jawaabi weydo go'aanka wada hadalka. war kale oo colaadda bariga dhexe la xiriira xaaladana wax ka bedeli kara. ururka Xisbullah ayaa ka digay in heshiiska rasaas joojinta ee Maraykanka iyo Iiraan uu burburi karo haddii aan lagu darin dhinaca Lubnaan. Ibrahim Masaawi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Lubnaan kana soo gala dhanka ururka Xisbullah ayaa sheegay in heshiiska oo sidoo kale quseeya furinta Xisbullah iyo Israa'iil, waxaana hoosta uu ka xariiqay in haddii Israa'iil aysan u hoggaansamin gobolka oo dhan oo ay ku jirto Iiraan in dagaalka la joojiyo, markaas inay bixin doonaan jawaab adag. isla arrimahan ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen in dagaalka ay kula jiraan Xisbullah iyo duulaanka dhulka uu sii socon doono, taasi oo taageeraysa hadalkii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee ahaa in heshiiska aysan ku jirin Lubnaan. wararkii ugu dambeeyay waxaa laga soo warinayaa weeraro badan oo Israa'iil ay ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan tan iyo markii heshiiska xabad joojinta ah uu dhaqan galay. telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay kordhiyeen duqeymaha ay ka geysanayaan caasimadda Lubnaan ee Beirut, xaafadaha koonfureed iyo magaalada Tyre ee koonfurta dalkaasi Lubnaan. وهاجاج ورد دقدقة وحد الصورة عي ولحرير أرنتن لبنان waxaa la sheegayaa mid ka mid ah duqeymihii ugu ballaarnaa Israa'iil inay ka wado magaalada Beirut ee caasimadda ah. hay'adda Laanqeydh Cas ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ilaa iyo 300 oo qof dhimasho dhaawac la soo warinayo, waxaana lagu soo waramayaa burbur xooggan, dab, holac iyo uuro
inay ka baxayaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Beirut ee caasimadda gaar ahaan dhanka koonfureed magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta waddanka Lubnaan ayaa lagu soo warramayaa duqeyn ba'an inay Israa'iil ku hayso xaaladan ayaa lagu soo warramayaa inay halis gelin karto waxaana suurtagal ah xitaa intaynu barnaamijka ku jirno wax weyn inay isbedelaan ama saacadaha soo socda waan idin soo gudbin doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha waxaa arrimaha kale ee gobolka haddii aynu eegno gaar ahaan weerar dhacay difaacyada cirka ee Kuwait ayaa sheegay in ay soo rideen 28 dayuuradaha aan duuriyaha lahayn oo Iiraan ay soo dirtay tan iyo saakay waa berigii sida uu sheegay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Colonel Su'aad Abdul Aziz Al-Utabi telefishinka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in weerar gantaalo iyo diyaaradaha drone-iska lagu qaaday Imaaraadka Carabta iyo Kuwait kadib markii la beegsaday xarumaha shidaalka ee jasiiradda Laafaan ee waddankaasi Iiraan. dhanka maranka Hormusne xogta socdaalka badda ayaa waxa ay muujisay in markabkii ugu horeeyay uu ka gudbay marinkaasi Hormus saacada kadib markii Mareykanka iyo Iiraan ay ku heshiiyeen xabajoojin shuruudaysan oo 2 toddobaad ah markabka xamuulka qaada ee Dayton Beach oo ay leedahay shirkad Greek laga leeyahay ayaa marinka ka gudbay kadib markii uu ka soo baxay dekada Bandar Abbas isla wararkan shabakada wararka ee Bloomberg ee laga leeyahay Mareykanka ayaa sheegtay in isbedel yar uu ku yimid dhaqaaqa maraakiibta ee marinka Hormuz inkastoo xabajoojin la gaaray ilaa iyo 800 oo markab ayaa halkaasi ku xayiran iyadoo wali maraakiibtu si buuxda aysan uga gudbin marinkaasi 20,000 oo badmaaxyaal ah ayaa la sheegay inay saaran yihiin maraakiibtaasi xagga diblomaasiyadda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in heshiiska xabajoojinta si buuxda loo hirgeliyo dhulka isla markaasina aan la ogolaan doonin wax kicin amaba falal wax u dhimaya oo carqaladeynaya heshiiskaasi ay gaareen Mareykanka iyo Iiraan waatahay balmarkana aynu eegno qodobada kale ee wararka maanta ku jira ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay dileen xubin ka tirsan Xamaas oo lagu magacaabo Mohamed Dawaad weerar ka dhacay waqooyiga Gaza horaantii toddobaadka war ay soo saareen ayay ku sheegeen iyagoo wax cadeyn ah aan soo bandhigin in Dawaad uu mas'uul ka ahaa soo saarista walxaha qarxa ee Xamaas isla markaasna uu hogaaminayay weerar kalena ciidanka Israa'iil ayaa si wada weerarada ay ka fulinaysa Gaza iyadoo xaaladda amniga ay weli kacsan tahay dhanka Turkiga laamaha ammaanka iyo garsoorka dalkaasi Turkiga ayaa shaaciyay in xabsiga loo taxaabay 10 qof kadib markii weerar ka dhacay banaanka qonsuliyadda Israa'iil ee magaalada Istanbul sida ay sheegtay wakaalada wararka Anadolu ila ku dhow baaritaanka oo ay wadaan 3 dacwad ooge oo ay xil saartay wasaaradda cadaaladda ayaa waxay sheegeen in tirada dadka la xiray oo ay ku jiraan 2 weeraryahan oo weli isbitaalka ku jira ay gaartay 10 saddexdii weeraryahan mid kamid ayaa la dilay halka labada kalena ay weli ku jiraan isbitaalka waxaana la filayaa in la horgeeyo booliiska marka ay helaan daryeel caafimaad oo ku filan وهجاج aynu dib ugu laabano wararkii Lubnaan wasiirka caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa waxa uu xaqiijinayaa isbitaalada in meydka iyo dhaawaca uu buuxo waxaa sidoo kale arrimaha naxadinta leh ee soo baxaya kamid ah sida uu tibinayo telefishinka Al Jazeera goob ay ka socotay tacsi oo ku taala bariga Lubnaan Aasiya tacsi ay ka socotay oo la yiraahdo deegaanka Shamstar ayaa duqeyn la eegtay waxaana la sheegayaa dadkii aaskaasi ka qayb galay iyaga qodhood halkaasi dhimasho dhaawac in loogu geystay wixii waraha arrimaha ay ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo وهجاج داوديال قرن وحنا أوجد بينا فلقينت حالة بارجة دحى جارهان هشيس كحب تجوجينته لجاري يوحى قبرة ذا كتري بس أينو كها كنا قدر حيسيسا قرب جوكتا Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoostagana bangiga caalamiga ah ee IBS eBesa goob kasta iyo goor kasta
Sombuy and Rent Property Finder. Sifihii mar hore saxariir ahaa iyo suuq fogaa laga samabaxayo sir baan ku haya waana Sombuy and Rent Property Finder. Ma tahay qof doonaya inuu iibiyo, iibsado ama kireysto ama iska kireeyo guri ama dhul, ma ku daashay raadinta meel lagu kalsoonaan karo oo si fudud kuu gaarsiisa guriga aad rabto. Haddaba xalka waad haysataa maanta. Sombuy and Rent waa shirkad online-ka ama waxa loo yaqaano Property Finder oo isku xirta milkiilayaasha guryaha iyo dhulalka real estateska, agencies-ka iyo dadka raadinaya guryaha ama dhulalka, hoteelada ama furniture apartmentska ama guryaha qalabaysan. Waxaana dhammaan adeegaasi aad hal meel uga wada heli kartaa Soomaaliya, Kenya, Egypt, Turkey, UK, USA iyo Saudi Arabia oo boqolaal qof ayaa hore uga faa'iideystay adeegan. Adiguna maanta ku biir oo booqo sombuyandrent.com. haddii aad tahay agency ama milkiile iska diiwaangeli website-ka ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. mahadsanidin. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaasheena koobaad iyo labaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaa baraha bulshada Facebook, YouTube, Twitter iyo weliba Telegram iyo bogga internet-kan ku leenahay ee hbnonlinetv.com. mawlid, haddii aynu ku sii socno arrimahan ku aadan wada xaajoodka, aynu ku bilowno dhanka heshiiska xabajoojinta ah. inkasta oo lagu dhawaaqay in Lubnaan ay qayb ka tahay, haddana waxaanu aragnaa duqayn Israa'iil ay ku hayso Beirut iyo magaalooyin kale. maxay ka macno tahay arrintan? maxamed, arrintan runtii halisteeda ayay leedahay. dad badan arrimaha gobolka ka faallooda waxay sheegayaan suurtagal inay tahay arrinta Lubnaan ay dib u qarxiso dagaalka. la yaabi mayno oo waana suurtagal intaynu barnaamijka ku jirno in wax isbedelaan oo laga yaabo in Iiraaniyiintu weerar ay qaadaan. barnaamijka markaynu ka baxno waa suurtagal, inaysan wax dhicinna waa suurtagal, laakiin wax walba ayaa dhici kara. arrintan waxaa lagu sifaynayaa dhowr arrimood inay ka macno tahay. waa tan koowaad, Netanyahu aan ku qanacsanayn heshiiska, inkastoo Israa'iil jab culus ay soo gaartay. shalay barnaamijkiisii kale ayna ku sheegnay nin khabiir inagoo soo xiganayna Xasan Jooni uu sheegay 48 saac la soo dhaafay nidaamyada difaaca Israa'iil inay ku guuleysan waayeen inay ka hortagaan gantaalada Iiraan ka imaanayay iyo kuwa Xisbullah iyo kuwa Xuutiga. walaacaas inkastoo Israa'iil uu soo foosaaray, haddana suurtagal waxaa Netanyahu inuusan heshiiska ku qanacsanayn. arrinta kaloo caddayn u ah Israa'iil heshiiskan ku qanacsanayn waxaa ka mid ah barnaamijkii ka horreeyay ee xulashada wararka waxaynu ku tabeynay hogaamiyaashii mucaaradka dhammaantood, Yair Lapid, Yair Golan, ninka la yiraahdo Avigdor Lieberman, dhammaantoodba oo dhaleecaynaya Netanyahu. waxay iskugu jiraan xisbiyada midigta dhexe iyo xisbiyada bidixda. macnaha qayb kasta oo ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iil kuma qanacsana heshiiskan. culays marka gudaha ka haysta Netanyahu. heshiiska uusan ku qanacsanayn oo ay macquul tahay sidii Xuutiga iyo Mareykanku heshiiyeen oo kale inay u heshiiyaan. taana waa suurtagal. waxaa kaloo dhici karta in Mareykanka iyo Israa'iil arrintan isku fahamsan yihiin oo la yiri furinta dagaalka ee Iiraan aynu heshiis ka galno iyo arrinka Hormuz, laakiin waxa doontaan ka sameeya Lubnaan iyo Gaza iyo meesha doontaan Syria xitaa. taana waa arrin dhici karta ayay leedahay qobradu. waxaa kaloo suurtagal ah in Iiraan laftigeeda diyaargarow dagaal ay ku jirto, Israa'iil ay ku jirto, Mareykankuna uu ku jiro, oo la doonayo in culayska la dejiyo dhanka diblomaasiyadda. shalay wixii ka dhacay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, culayska caalamka ka jira, marinka Hormuz dhibaatada ka jirta inay tahay. waxaa kaloo macquul ah in arrintan aysan la xakamayn karinba oo madaxweynaha Mareykanka siduu sheegayo gacantiisa waxba aysan ku jirin, Israa'iil gacantiisa waxba aysan ku jirin, oo arrintan ay tahay arrin faraha ka baxaysa. Israa'iilna ay suurtagal tahay inay aaminsan tahay dagaalka inuu sii socdo ilaa iyo Iiraan jiritaankeeda meesha laga saarayo. waayo waxaa muuqata hadafkii ay lahayd Israa'iil dagaalka inaysan ka gaarin. marka arrinta Lubnaan waa arrin halis ah, xaaladdu waxbay ka bedeli kartaa. maxamed, waa garta dhanka Iiraan maxay ka yeeli doontaa? ma daawan doontaa mise ka jawaabi doontaa weeraradan Israa'iil ku wada Lubnaan? horta si dhaba uma ogin waxa ay samayn doonaan Iiraaniyiinta, laakiin cid walba oo arrintan ka hadlaysa maanta waxay leedahay Iiraaniyiintu
haddii ay ku daawadaan lubnaan oo sidaas loo gelayo khiyaanay sameeyeen wayna ka soo bixi doontaa baan leeyahay sababta maxay tahay xisbullah dagaalkan waxay u gashay oo lubnaan maanta waxaan ugu dhacayaan 300 oo qof ayaa la sheegaya hadda inay dhinteen maanta oo kaliya waa saacado gudahood dhimashada dhaawac rali ahaada dhimashada dhaawac waa xisbullah markay u soo hiilisay Iiraan Iiraaniyiintu marka way ku qasban yihiin baa leeyahay dagaalka inay dib ugu bilaabaan arrinta marka Lubnaan inay heshiiska ku jirtaan way caddahay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif afkiisu ka sheegay wuxuu yiri xabad joojin dhamaan gobolka oo idil oo ay ku jirto Lubnaan erayga xitaa uu sheegay Lubnaan ayaa la gaaray buu leeyahay oo Mareykanku uu aqbalay Iiraan ay aqbashay Iiraan marka sida muuqata heshiiska waxa ay doonayso way heshay laakiin Lubnaan ka tanaasuli doonta waa su'aasha la isweydiinayo ma noqon doonta in Mareykanka ay la heshiiso oo Israa'iil iyo iyadu markaas dagaalka ay wadaan sababta marka Israa'iil ay weeraraysa aan wax yar dul istaagin koonfurta Lubnaan dhowr boqol yaa oran dhowr kun oo qoys oo Israa'iiliin ayaa waxay ka soo qaxeen waqooyiga Israa'iil hoteelay degan yihiin xarumihii dawladda hoose ay degan yihiin dhulka hoostiisa ay ku jiraan waxay leeyihiin kuma laaban karno waqooyiga Israa'iil sababta maxay tahay xisbullah ayaa hubaysan Israa'iil marka waxay og tahay xisbullah awoodeed inay jirto oo awoodeed ay dhisan tahay dagaalkan waxyaalaha Israa'iil nafta u keenay waxa kamid ah ma ahan oo kaliya Iiraan waa xisbullah duqeymaha ay sameynayso iyo weerarada ay geysanayso weerar joogta maalintii shalay ahayd oo kaliya 60 gantaal ayaa lagu riday Israa'iil gantaalada ay ridayso iyo diyaaradaha daroonka ay ridayso xisbullah waxay ka badan yihiin inta Iiraan ay ridayso marka jug culus ayaa Israa'iil ka soo gaartay halkaasi askarta Israa'iil ee ku geeriyootay ama ku dhaawacantay furinta Lubnaan bil kaliya 400 askari ayay gaarayaan waa inta Israa'iil ay qirsan tahay waxa suurtagal ah intaas inay ka badan tahay taangiyada la gubay gaar ahaan nooca Merkava hadday ugu yaraadaan 100 taangi waa dhan yihiin dagaal sidaas ciidanka Israa'iil loogu galay kama dhicin koonfurta Lubnaan ilaa iyo 2006 Israa'iil marka way og tahay Iiraan oo hubaysan oo sideedii u jirta Xuuti oo sidiisii u jira xisbullah oo sideedii u jirta waxa ay dagaalka ka faa'iiday ma jirto dhibaatay ku gashay qasaar ay ku gashay Tel Aviv baa la burburiyay Beershacb baa la burburiyay Dimora la burburiyay waxa la burburiyay Tel Aviv waxa la burburiyay Haifa waxa la burburiyay galbeedka Qudus Israa'iil dhibaato weyn ayaa soo gaartay dagaalkiina kuma guuleysan marka jawaabta su'aashaada Iiraan waxa ay sameyn doontaa iyada laga sugayaa laakiin indhaha in iska daawan doonin ayaa loo badinayaa waa tahay arinta xabad joojinta haddii aynu dib ugu laabanno muxuu ka macnan yahay ma muuqataa in hadda si sagxadda la isla gaaray oo qolo kasta awoodeeda la tijaabiyey oo la kala adkaan waayey dhabahantii way u muuqataa sagxadda in isla tagay Iiraan ha noqoto xisbullah waxaan u jeedaa Israa'iil iyo Mareykanka ha noqoto ururadan iska caabinta dawli ma ahan xuutiga iyo xisbullah oo kale weligoodba jabhada haayeen dagaalka iyagoo ku jiri karaan wax weyna kama dhumeeyaan laakiin qasaaraha weyn wuxuu soo gaaray saddexda dhinaca dagaalka ku jirta Mareykanka aanu imaana marka koowaad hadayta waxa hadlay xogayaha dagaalka ee waddanka Mareykanka Pete Hegseth waxa ag taagnaa taliyaha guud ee taliyaasha ciidamada Dan Kane wuxuu ku faanay Iiraan inay jabiyaan awoodda Mareykanka inay tahay mid aan laga daba hadli karin waa Pete Hegseth nin wariyaab u ahaan jiray inkastoo askari uu ahaa dagaalka ka soo qayb galay Afghanistan iyo Iraq laakiin hadalkiisa marka la qiimeeyo haddii mishin la geliyo hadalka beenta qabta 90% ayuu qaban lahaa sidaas waxa yirin qabiil oo American ayaa yiri 90% wuxuu sheegay macnaha sida ku oran kartaa waan guuleysan horta askar Mareykan ku geeriyoto meesha Mareykanku waxay qirsan yihiin 13 askari Mareykanku wuxuu qirsan yahay ilaa 400 askari inay ku dhaawacmeen waa inta uu qirsan yahay laakiin Iiraaniintu waxay leeyihiin dhowr boqol ayaynu dilnay wuxuu ku leeyahay gantaaladii iyo nidaamyadii difaaca ee Iiraan waana burburinay wuxuu leeyahay gantaal kasto ay soo ridaan Iiraaniintu waan ka hortagnay saldhig ku yaala Sacuudiga oo lira Amir Sultan diyaaradaha lagu gubay oo kaliya oo Mareykanka har noqdeen kuwa shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha ee booyadaha ah iyo kuwa kale sahanka ilaa 10 bay gaarayaan Israa'iil sidaas kale diyaarado badan oo Mareykanka lagu gubay saldhigyadii Mareykanka
dhammaantood bariga dhexe mid la gubay iyo mid waxaa laga dhigay dambas laga dhigay alcudeed ka soo qaad kuwa imaaraadka ku yaal kuwa baxrayn ku yaal kuwa kuwait ku yaal kuwa ciraaq ku yaal israa'iil gudaheeda kuwa ku yaal sacuudiga kuwa ku yaal waxaasoo dhan waa la wada duqeeyey xitaa syria la gaarsiiyey duqayntan marka hal howlgal ayuu maraykanku qaaday oo laleeyahay askari baan kusoo furannay duuliyahani baan kusoo badbaadinay laakiin wararka qaarkood waxay leeyihiin maraykanku inuu isku dayey inuu soo qaato uraniumkii la teeyey oo isfahaan yeel hadda kahor dhowr jeer baan ka hadalnay uraniumka ma ahan geed camba ah oo beerihii afgooya ku yaal ma ahan meesha u yaala waan ka hadalnay inay tahay meel dhulka hoostiisa oo la burburiyey waa tan madaxweynaha maraykanka uu leeyahay waxaan isku dayi doonaa inaan Iiraan ka caawino la kaashano la soo saaro uraniumkaas asagoo wuxuu ka wadaa in lagu wareejiyo wadan kale ama Turkiga lagu wareejiyo ama Ruushka lagu wareejiyo taa marka waxay cadeynaysaa uraniumkaas inuusan ahayn mid banaanka yaal sida geed qaraa oo kale ma uusan ahayn banaanka yaal waa la dumiyay meel buu ku hoosiyay waxa kaloo suurtagal ah xitaa Iiraaniinta inay kala baxeen meeshaasi oo lagaba sii qaadayba inta dagaalka uusan dhicin taa laftigeeda dad baa ka sheekeynaya khubarada kamid ah marka dhaawaca howlgalkaas kaliya Mareykanka ka soo gaaray laba diyaaradood oo C-17 ayaa la gubay waxa la gubay helicopter waxa la gubay A-10 waxa laga gubay F-35 waxa laga gubay F-15 marka dhaawaca Mareykanka gaaray iyo dhaqaalaha ku baxay hal toddobaad kaliya oo dagaalka ugu horeeyay toddobaadkii koowaad 12 bilyan ayaa kaga baxday Mareykanka marka waa gartay mawlid gabagabadii aan ku dhowrnahay heshiiskan labada toddobaad maxaa xigi doona 14 bari marka uu dhamaado lama oga wax dhici doona ma sii socon doona heshiiskan ma la gaari doona xitaa 12 toddobaad waxaan u jeedaa 14 bari in la gaari doono xitaa shaki badan ayaa ku jira laakiin waxay u badan tahay haddii arrintan Lubnaan la xalliyo in heshiisyadu ay sii socon doonaan Iiraaniyiintu waxay u arkaan inay gaareen guul inay gaareen oo ay heleen wixii ay doonayeen waxa ugu muhiimsana waxay tahay jiritaanka Iiraan way jirtaa jug ha gaarto oo rag badan ha laga dilo hogaamiyihiisa ha laga dilo madaxweynaha Iiraan oo kale maruu hadlayay wuxuu maanta yiri guushan aan gaarnay wuxuu yiri waa dhiigii ayatollah Khamenei macnaha dilka la dil laftigiisa guul buu qayb ka ahaa guush marka wuxuu la jeedaa dadka Iiraaniyiinta dhiigaas inuu mideeyay oo hal meel maanta ka soo wada jeedaan oo xitaa aysan jirin 40 maalmood dagaalka uu socday cid banaan baxday oo dawladda ka soo horjeeda banaanka ay timid marka xaaladdu waxay u muuqataa inaan la saadaalin karin waxa imaan kara laakiin waxay u badan tahay haddii arrintan Lubnaan la xaliyo heshiiskan inuu taagnaan doono walow ula booca ku tukubayo waa gartay dalalka qaliijka oo noqday ayuu garoon lagu dagaalamay maxay sameyn doonaan maxayse cashara oo ay ka barteen dhamacda soo gaartay dhowr qodob ayaa la filayaa inay sameyn karaan waa tan koowaad horta inay dib isugu laabtaan waxaa lagu mitaalay guri cariish ah oo meel geeri go'an oo cidla ah ku yaal oo dabaylna ay socoto wadamada carabta lacag kasta oo ay haysteen way difaaci weeyeen macnaheedu waxay tahay Mareykanku xooggiisa wuxuu isku geeyay difaaca Israa'iil nidaam difaac weerar gantaalo intaba laakiin wadamadan meel cadla bay joogaan marka waxay noqon doontaa inay ka fakaraan yaa la heshiin doontaan saldhigyada Mareykanka inay ku yaalaan wadamadan khaliijka madamba ugu jirta mise qasaara ugu jira taa inay ka fakaraan dhaqaalaha ka burburay muxuu noqon doonaa hadda maanta oo kaliya laba warshadood biyaha sifeeyay ayaa Kuwait laga burburiyay waa xilligan oo aynu joogno oo heshiiska xabajoojinta la gaaray marka Mareykanka inay saaxiib la noqdaan dalmiya ugu jirta lama oga wax dhici doona taa laftigeeda Maxamed waayahay ugu dambeyntii mawlid Ruushka iyo Shiinaha muxuu yahay doorkooda xaaladan soo korortay ee heshiiska iyo guud ahaanba ee dagaalkii dhacay horta tan heshiiska kaalin weyn bay ku leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay wixii xalay ka dhacay golaha maanka ee qaramada midoobay iyo qaraarkii codka veto-ga ay ku dhufteen Shiinaha iyo Ruushkana wax weyn buu muujiyay Mareykanka waxay tustay dagaalkan haddii uu sii socdo in xaaladdu isbedeli karto wararka qaarkood waxay leeyihiin Shiinaha waa damarad qaadaha heshiiskan oo Iiraan u ballan qaaday inaan dibdib loo weerari doonin taa laftigeeda waa arrin muhiim ah waxa kaloo meesha ka muuqata Ruushka inuusan dayacin Iiraan shalay waxaynu sheegnay barnaamijkii xalay aan ku sheegnay maxaa cusub in sirdoonka Israa'iil ay sheegeen Ruushka inuu caawiyay Israa'iil arrintaas marka waxay u muuqataa
ruushka in lagu dhaliilayay inaysan waxba u tarin markii la ridayay Bashar al-Assad inaysan waxba u tarin Maduro markii la qabanayay hadda laftigeeda Kuuba inkastoo markab shidaal ay u direen laakiin cunaqabataynta saaran inaysan waxba u qaban marka haddii Iran oo si fiican ugu hiilisay ruushka dagaalkii Ukraine markuu bilaabanayay haddii ay dayacdo Iran ruushka markaas waxa dhici karta Moscow ay dayacdo waxa dhici karta marka ruushka in dib dambe loo aaminin taa laftiga markaas oo ka dabaaqtamaya wax badan ayuu sameeyay baa leeyahay daaha gidaashiisa iyo wax muuqadaba marka door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda halkan ay gaartay maxamed waa tahay mawlid waad mahadsan tahay wixii ka soo kordhaa wararkaasi iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wararka maantay halkan aan idinkala socodsiinaynay anigoo ah maxamed cabdiraxmaan iyo mawlid xaaji cabdi oo soo saaray barnaamijka si aad u hesho wararka iyo barnaamijyadeena haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama aadan horey ugu xirneen kusoo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wayna kulan dambe ee nabadgelyo ku soo dhowow Safari Remit warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees